boqorolayo bahideen dhammaanteed intaan baaqdirayno adaa baahin karaye adan ku bandhigaynaa boqorolayo bahideen. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد magacaygu waa cumar maxamed cumar soomaali waxaan ka tirsanahay ururka riyada dhalinyarada soomaaliyeed Somali Youth Dream. muhiimada loo aasaasay ayaa ahaa ururkan in dadka Soomaaliyeed laga wacyigeliyo qabyaaladda. insha Allah waxaan rajeynaynaa inaan qabyaaladda ka gudub doono dalkeenana nabad iyo barwaaqo u gali doono insha Allah. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أمد إسلام كمال والبقي جوكتو حنكو سلامة سلامتي إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكي حكتو وحان ليها مقعي وفاضم حسين حسن صومالي وكوهد ليسا مقعين أوركان رياضة دلنيرة الصوماليات أما صومالي يسترين waxaan rajeynaa insha Allah inaan ku midownay alla dartiisa walaalahayga aan u midownay maxaa la dhahaa inaan codkeena si saliim aan ku gaarsiino walaalaheena Soomaaliyeed insha Allah waxaan rajeynaa inay idana nagu waafaqi doonaan wax diinteena raali ka tahay dhaqankeena xusaayo insha Allah inaan u gudbino loo aasaasay ururkan ummadan Soomaali dhan aanan ahayn wax anaga bis maanta ugu kooban laakiin aan rajeynayno inaan anaga dhan ku midowno insha Allah riyadeen ugu weyn ay taas tahay waxaan rajeynaa in Ilaahay nala garab galo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bulshaweynta Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradeeda. magacaygu waa Maxamed Maxamuud Soomaali kana tirsan ururka riyada dhalinyarada Soomaaliyeed. sharaxaad yar haddii aan ka bixiyo ururkan iyo sababaha loo aasaasay waxaa ka mid ah number 1 ka wacyigelinta iyo la dagaalanka qabyaaladda taasoo aynu wada ognahay inay tahay markaas iyada udub dhexaadka ka dambeeya inaynu weyno qaran Soomaaliyeed kaasoo hanan kara markaas iyada bulshaweynta Soomaaliyeed amnigooda iyo sharaftooda. number 2 ka talinta iyo ka fikirka aayaha iyo mustaqbalka fog ee ummadan baylaha oo ah markaas iyada cadawgooda. number 3 isku keenida dhalinta iyo isku xirkooda si ay u noqdaan kuwa ka fikira mustaqbalka ummadan mugdiga waliba sii galaya. haddaba waxaan u soo jeedinayaa dhammaan dhalinta in aanu fursad u aragnay marka koowaad inaan dhalinta ka wacyigelino baraha bulshada. haddaba waxaan u soo jeedinaynaa dhalinta in iyaguna isla sii wadaagaan wacyigelinahan aan halkan soo gelin doono insha Allah naguna taageeri doonaan markaas iyada fikirna. بسم الله الحمد لله الذي ونتوى ونستغفره ونستعينه والحمد لله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ولا مضل له فقد قال الله تعالى في محكمة تنزيله واستغفر القائلين مقعي وقيس عبد الله الصومالي waxaan ku hadli doonaa afka riyada dhalinyarada Soomaaliyeed ama Somali Youth Dream waxaan ka hadli doonaa sababtan u aasasnay riyada dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u aasasnay inaan ugu hortagno qabyaaladda waxaan u aasasnay inaan ka hadalno dhibaatooyinka ay leeyihiin qabyaaladda iyo waxyaabaha ay Soomaaliya dhibaatooyinka u keeni karto waxaan ku rajeyn doonaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed inay nagu taageeri doonaan inay insha Allah aanu kan dhiirigelin aan ka heli doono anagana waxaan rajeyn doonaa inaan soo gudbino mowduucyadana xiga. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بعد الافتتاح والحمد لله السلام عليكم دمان بلشدة الصوماليين guud ahaan caalamka halka aad ka joogtaan waan idin salaamahayaa
magacaygu waa Saciid Ukaashiyoni Soomaali xubinka ah Somali Youth Dream kuna hadlayo magaca riyada dhalinyarta Soomaaliyeed. Muhiimadda oraahdaydan aan u soo gudbinayo waa bilowga geedi socodkeena iyo halka aan awrta ku furan doono kariyada dhalinyarta Soomaaliyeed ahaan. Wax waliba waxay leeyihiin ujeedo loo aasaasay ama ay u yimaadaan. Annagu waxaan nahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka gubanaysa dulmiga iyo xiqdida ee isku hayno dhexdeena iyo halaaga ay ku socoto ummadayna Soomaaliyeed. Aragtidaynaas waxaan isleenahay oon uga midownay inay tahay araahda kaliya ee da'yar weliba oo Soomaaliyeed ka guuxaysa maankiisa. Walaal saaxiib maanta mid ogow annagu kaama doonayn magac ama maal kaliya, waxaan kaa rabnaa maankaaga inaad na siiso si wadajir ah ula dagaalno xeerka kala sareynta ummadda iyo sidii aan meel u saari lahayn xuquuqaadkii caruurteena qarniyada dambe insha Allah.